بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد إلهي ومهد سكال سبحانه وتعالى شركنا جرائد وحو كسابسن يحي دقالكي ساكا أرورتي كبلودي آغا مقالة الراس كامبوني ووقت دير قاتي دقالكاس إن مدى سعودي وحو كسو قبوبي وقدام بينتي قبل دعي أي مقالة الراس كامبوني ستوس يقعنت الدولة جبلان dhammaan ugu soo wareegtay ilaahay baa ku mahadsan waxaan rabaa inaan halkan uga mahad celiyo dhammaan ciidamada geesiyaasha ee dawladda Jubbaland ee ku jira furimaha kuwii maanta ka qayb qaatay dagaalka iyo kuwii kale khawaarijtu ay ku soo weerartay Buula Xaaji iyaguna waan u mahad celinayaa waxaan rabaa inaan runtii aan halkan ka sheego dagaalkan in badan baan anagu yaan ka dignay dagaal xaq darro abuu ahaa waana ka xunnahay runtii sida ay wax u dhaceen ma ahayn waxaan anagu raali ka nahay waana ka dignay laakiin dawladda federaalka digniintaas way iska dhaga tirtay runtii waxaan aad uga xunnahay ciidanka Haramcad iyo ciidamada Gorgor in ay dawladdu ay u adeegsatay si khaldan ciidamadii caalamka ku soo caawiyay dalkeena in loo isticmaalo arrimo siyaasadeed oo dadka lagu laayo oo deegaanada la geeyo runtii waan ka xunahay ciidamadaas dagaalkii maanta dhacay intii dhimatay Allah u naxariisto inta dhaawacana waxaan Ilaahay u rajaynayaa inuu u boogadhayo runtii ciidamo badan ayaa isu soo dhiibay oo gacanteena ku jira ciidankaas dawladda Jubbaland isu soo dhiibay dalkoodii bay joogan si nabadgelyo ah ayay saacada hadda aan ka hadlayay ku sugan yihiin ma jiro cid wax loo dhimayo ma jiro cid si gaar ah loo beegsanayo mana jiri doonto cid wax gaar ah loo dhimi doono biidnillaahi kariim ciidamada waajibaad bay qabaan in ciidankaas sida ugu quruxda badan loola dhaqmo waxaan u sheegaynaa dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ciidankaas inaanan la bahdili doonin inaan la dili doonin inaan si xun loola dhaqmi doonin ayaan sheegaynaa waan u mahad celinayaa ciidanka Jubbaland sida sharafta iyo karaamada leh oo wiilasha walaaladood ee la soo khalday ee siyaasadda lagu soo marin habaabiyay ee wala dhaqmeen maanta waxaan haynaa dhaawac aan ka soo qaadnay goobaha dagaalka askarta dagaalka gashay khaladka male askari baan ahay askari waajibaadka la siiyo ee saxda ah ayuu qaataa laakiin ciidankaas mas'uuliyadiisa waxa iskale saraakiishii soo mareen habaabisay iyo madaxdii khaladkaas gashay ayaa iskale askari ma xumaada madaxdiisa xumaata madax xun ayaa adeegsatay anagu askariga la soo qabtay cidii si gaar ah dambi u gashay ninka guri galay ee bilaqaystay ninka naakufsaday ninka xoolo dadweyne dhacay dambiga uu galay ee gaarka ahaa sharciga u ogol taas dawladda kula xisaabtamaysa laakiin waxaan si cad u cadeynayaa ciidamadaas dagaalka siyaasadda galay ee dagaalka siyaasadaysan ee dawladda federaalka Soomaaliya u adeegsatay in aan maxay ahaydii dagaalka ay galeen dartii aan dawladda Jubbaland aysan u ciqaabi doonin dhaawaca si fiican baan u daryeelaynaa goobaha isbitaalada yaalaan meesha ciidankeena lagu daaweynaya iyagana lagu daaweynaya sida kuwa loo xanaaninaya iyagana loo xanaaninaya insha Allah taala ciidanka hadda gacantanada ku jira ee dawladda Jubbaland isu soo dhiibay hubkooda iyo macal gaadiidkoodaba gacantan ku haynaa insha Allah taala si qurux badan baan loola dhaqmi doonaa cid doonaysa inay cidooda aado oo guryahooda aadana si nabadgelyo ah anagoo waliba si qurux badan u dhaqaaleynayna oo sagootinayna oo sahayaan dirayna ninkii raba inuu Jubbaland joogana dalkiisa oo nabad u jooga kuwa xuduudda gudbay Kenya u gudbay ayaguna sidoo kale hadda meel nabad ay joogaan iyagana waan soo dhaweynaynaa inay wadanka ku soo noqdaan iyagiyo hubkoodaba inay soo noqdaan insha Allah taala waan ka shaqeynaynaa waana maartay cid wax loo dhimayana ma jirto waxaan leeyahay dawladda madaxweyne Xasan Sheekh madaxweyne waad khaldantay khalad taariikhi ah ayaad gashay waa khalad inaad dadkaaga iyo sharciga lagu egmaday ee awoodda dawladda lagu siiyay inaad dalkaaga ku hogaamiso inaad dadkaaga u adeegsato khalad bay ahayd wixii dhacay way dhaceen waxaan rabnaa wax dambe inuusan dhicin mas'uuliyadda dagaalkaas dawladda federaalka Soomaaliya ee madaxweyne Xasan Sheekh uu hogaamiyo ayaa iskale wax kasta oo khasaaro naf iyo maal meesha ka dhacay mas'uuliyaddeeda madaxweyne Xasan Sheekh ayaa iskale intaas sidoo kale waxaan haynaa daroontii maanta lagu soo weeraray ciidanka ee dagaalka ka qayb qaadatay gacantan ku haynaa waan soo bandhigi doonaa insha Allah taala wiilasha walaaladeen ah ee dagaalka lagu soo khalday ee isu soo dhiibay
annagu si xun oo lama dhaqmayno waan ku celinayaa insha allahu tacaala sida ugu quruxda badan ee askari Soomaaliyeed loo ixtiraamo ayaan u ixtiraamaynaa mar labaad waxaan u mahad celinayaa ciidamada geesiyaasha ah ee dowladda Jubbaland insha allahu tacaala saraakiishii dagaalka gashay iyo ciidamadii dagaalka galay dagaal xaq darro ah buu ahaa waana ka xunnahay sida wax u dhaceen insha allahu tacaala waxaan is leenahay waan abaal marin doonaa cid kasta oo wanaagga ka qayb qaadatay midnimada iyo dowladnimada Soomaaliya ayaan rajaynaynaa inay shaqayso nidaamka federaalka inuu hirgalo ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala waxaan u taaganahay habeen iyo maalin difaaca dalka waxaan u taaganahay habeen iyo maalin in aan hirgelino nidaamka dawliga ah ee federaalka ah ee ummadda Soomaaliyeed ay ku heshiisay kaas xeerka iyo sharciga ee ummadda Soomaaliyeed dhigatay kaas aan ilaalinaynaa kaas aan ku wada shaqaynaynaa maanta dagaal baa dhacay oo khawaarij soo qaaday magaalada Buulaxaaji ayay dagaal ku soo qaadeen Buulaxaaji waad ogtahay in badan ayay ku taamaysay khawaarijtu inay dib u qabsato ayagoo ka faa'iideysanaya fursadda ciidamada Soomaaliyeed ee maanta dagaalamaya ayay maanta weerar soo qaadeen waana lagu jabiyay ciidanka geesiyaasha ee Jubbaland runtii juhdi weyn ayuu maanta sameeyay oo arintaas ciidanka khawaarijta ee soo weeraray uu iskaga difaacay dowladda federaalka Soomaaliya khaladka ay gashay waa mid taariikhi ah hore u gashay xilligii hore ee dowladii Xasan Sheekh ayay gashay dhibaatadan oo kale ay dhacday waxa nasiib darro ah maanta ciidankii loo tababaray difaaca qaranka in loo adeegsado inay dadka walaalahooda ay xilligii ay la dagaalami lahaayeen khawaarijta maanta meelo badan oo dalkeena kamid ah oo khawaarijta ay haysata ay dagaalo ka socdaan xilligii ay dagaaladaas ciidamadaas ay geli lahaayeen ay dowladdu waxay u adeegsatay inay ku burburiso nidaamka federaalka ah ee dowladda Soomaaliya ay ku heshiisay iyo ummadda Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ciidamada gacan waliba waxay geysatay leedahay qof waliba khaladka uu galo isaga ayaa mas'uuliyadiisa qaadaysa anoo maxay ahaydey taasna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu aayad quraan ku yiri wala taziru waziratu wizra ukhra wabillahi tawfiq